كل يهدي ولا قصل اللي هذيك قصليه مرك أي حاجه احمد شيل سمون اورن من حزبنا سيدتن iyo waxay ahayd 6 iyo 80 kii bay ahayd baan malaynay aniga marka gabadhu waa ina sheekh xasan oo wad wada garanaysaan kuwa damba garan maayaan reesha xasan waxay ka soo jeedaan xagga meel la yiraahdo ood weyne iyo dhulka iyo xaaxe iyo xaggaas ka soo jeeda walgal aad garanaysaan barum sheekh xasan wuxuu ahaa wasiirkii arrimaha diinta dawladdii Soomaaliya ayuu ahaa waasaad sheegaysaan sheekh Axmed wuxuu ahaa min xiiskaygu ahaayo arooska markii uu dhacay laakiin dhibaato yar oo ay qabsatay baa idin sheegaya oo idinka yar qoslin doonto wax yar ya gabadha inaan macallin u ahaa miya gabadhana macallin baan u ahaa taasina iska jirto jaamacadda ay dhiganaysay jaamacaddan anna macallin ka ahaa almuhim sodohday waxay ahayd masriyad markii qabanqaabadii arooskii la gaaray ay waxay tiri sheekh hadee arooskii uu soo socdaa adiguna weligaa hadiyo goor khamiis iyo cimaamadu ma kugu aragnaa maxaad xiran doontaa waxaan idin khamiiskayga cimaamadeeda xiranaya waxay tiri la yumkin habeenkaas waa inaad nagtiin xirataa nagtiin aniguna markaa xoog dee dhalinyaranadii baan soo dhaafay oo sheekh baan masaajidka ka ahay oo odayaal fara badan baan markaa sheekh u noqday sheekh Axmed iyo ay ku jiraan oo anigu markaa aan tujiyo oo salaadii tahajjudkii iyo waa islaantii sodohda ahayd waa isla mari weyne waxay tiri ma jirto arooskaasi ma badhacayo haddaadan surwaalka iyo shaatiga iyo nagtiinka soo xiran taraddud badan baa galay maxay yeelaa war barnaamijka iska kansala kulligii maxay yeelaa ma haddaan bahalka surwaalka xiran karaa markii dambe waxay noqotay in la iga adkaado waa iska ogolaaday nagtiinkii baa liisoo tolay alaabtii baan isku dhiiji bahalkii halkaa lagu xiran jiray xataa maxaa garafaati ma waa garafaati xataa waa la xiray wax yar waxaan marka aan diiday oo iyaduna inay igu qasabtay damacday koofiyadana waa tuuraysaa ma tuurayaan koofiyada wax kasta oo dhaco marka anigoo koofiyad xiran nagtiina xiran ayuu gacantay soo qabtay sheekh Axmed meesha saasaan ku soo galnay wallahu ta'ala